maalin baa la sameeyey qiyaamo fayunabbi'ukum bimaa kuntum takhtalifuun maalinkaas wuxuu idiin sheegaya waxaa isku maandhaafsanaydeen war adigu waa khaldanayd adna waa saxsanayd halkaan maaha maalin bay leedahay halkaan waxaa dadka loo keenay inay xorriyaddooda qaataan halkaan haddii cid qasbayso macaanba ma yeelateenba ninka naar shaqaysanaya waa asagoo xorriyad buuxda inuu naar shaqaysto kan janno shaqaysanayaan asagoo xor inuu janno shaqaysto nin la qasbay qiimo ma leh haddaa hadda wanaagga kugu qasbo daacad maaha wanaaggaagu xumaanta haddaan kugu qasbana xumaantaada dembiba maaha anaa ku qasbay waa in la helaa qof asagoo xora xumaan sameeya iyo mid asagoo xora daacad noqda markaasaa janno naar imaanaysa nina nin u taliyo qofna qof suuraba ka yeelo qur-aanku ma dhahayo u fiirso waxaa cajiib ah oo ayadana in la dul istaag u baahan ilaahay subxaana wa tacaala u fiirso wuxuu rabaa inuu na tusaaleeyo dadkii annaga naga horreeyey waxaasa xalaala waxaasa xaaraama waxaa ma bannaana waxaa waa bannaan yahay ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala walaa taquluu lima tasifu alsinatukum alkadib hada xalaal wahada xaraam litaftaruu cala allahi alkadib kanaa xalaala kanaa xaaraan ha oranina idinkoo alla ku been abuuranaya xalaasha iyo xaaraanta waxaa sheega mulkiilaha who is the owner yaa iskala meeshaan adigu ma lihid alaa lahu alkhalqu waalamru abuurkan madaxyadaa madow asagaa leh amarkoodana asagaa leh ninkii raba inuu dad amrado xalaalo iyo xaaraam u sheego ha abuurto dad kale another planet ha ku abuurto dadka allah abuurtay xalaashii xaaraanta asaga keliya u sheegi kara awliya u sheegi mayso culumma u sheegi mayso nebiyaal u sheegi mayaan allah u sheegaya inta kale waa shaqaale malaggu waa shaqaale waxyigu alla ka soo qaadaa nebiguna waa shaqaale waxa loo sheega uu sii sheegaa kulli waa shaqaale meesha yaa leh yay u furan tahay allah subxaana wa tacaala alaa lahu alkhalqu waalamru waxaa leeyahay u firso waxaa leeyahay kuwa ilaahay qeyrkii xalaasha iyo xaaraanta ka qaadanaya ma waxay u maleeyeen ilaahay dadka inuu qaarna ilaahay leeyahay qaarna qolo kale leedahay fatashaabaha alkhalqu calayhim waxaa isaga khaldamay qoladii alle iyo qoladii qolada kale ciddii doonaysa inay hesho qolo ay ku takrifasho waxaa leeyahay ha abuurtaan falyakhluquu ha abuurtaan haddaad doonaysid xalaal iyo xaaraan qur-aankan aan ku ool dadka inaad u samayso nebiyow haddaa xalaal iyo xaaraan samaynaysa nebiyow dad abuuro haddaad shaqaalo tahayna wixii alla kuu soo dhiibay keliya noo sheeg maxaa yeelay laba qolo labadaba waxaa leeyahay halkaa fadhiista waa nebiyaasha iyo malaa'igtoo qayba iyo culummada iyo wadaadadoo qayba fiir waa 4 magac aayadna labay sheegaysaa aayadna labay sheegaysaa afartooda waxaa leeyahay labadiinu fadhiista dadka ababkooda faraha la gelinina waxaana anigu sheegina haw sheeginina waxaana xariminina ha xariminina saa haddaa samaysaana waa halaagsamaysaa culummada waxay sheegaysaa aayaddu u fiirso waxaa la yidhi culummada ittakhaduu axbaarahum wa ruhbaanahum arbaaban wadaadadoodii iyo culummadoodii waxay ka dhigteen rabbiyaal rabbi maxaa haddaaya ku sheegnay ilaaha wax ababiyo xumaanta iyo samaanta sheega anigu jibriil uma qeexi karo xumaan iyo samaan waa u simannahay laakiin markaan dhaho alla wuxuu yidhi zinadu waa xun tahay oo aayad baa waxay odhanaysaa walaa taqrabu zina igu raacayaa hada xaqiiqataas laakiin anigu uma alifka ma dhihi karo funaanadaha noocaana ma fiicna ma oran karo funaanada madaxa saan looma jarto ma oran karo wax asaga u yaalla wey waxaa la yidhi ittakhaduu axbaarahum wa ruhbaanahum arbaaban wadaadadoodii iyo culummadoodii rabbiyaal sida alloo kale waxarimo xalaalay ka dhigteen bale arrintaasna waa shirki diintaana looga baxaa aayadda kale aali cimraanna waxay tidhi walaa ya'murukum an tattakhiduu almalaa'ikata waannabiyiina arbaaban idinma oran nebi iyo malaa'ig rabbi ka dhigta anaa rabbiya allah subxaana wa tacaala nebiga iyo malaa'igtu dawr bay lahaayeen malaa'igay warka alla soo qaadoo nebiyaasha u keen war nebiyo waxa alla kuu sheegay ummadda usii sheeg intaasay ahayd lama oran ila wadaaga ababka isha halkaa kuugu taalla awliya kuuma samayn wadaadna kuuma samayn nebina kuuma samayn malagna kuuma samayn isha haddaysan samayn ishu meeshay fiirinaysana ma sheegi karaan meeshaysa fiirinayn waxaa sheegi kara allihii samaystay markaasuu wuxuu ku leeyahay waqul lilmu'miniina yaquduu min absaarihim raggow dumarka ishiina ka laaba waqul lilmu'minaati yaqdun dumarow ragga isha ka laaba ilaahay isha lahaabaa sheegaya nin kale ma sheegi karo
أبورتي الدنيا مريا وحلاشة وحرمت ألا شيء سبحانه وتعالى أنت أمرت وحقصوا بحيسة وأن ربا إن درسي وجددي سيقدقوا ولا عليا دين إسلام ودين لو سميه أنه هو أسمنه عد الله عد يسوع جارته وأسمنته مسلمين توا أسميه آذنا هالدنيا تشوغا وأسميه والله أسميه صابته وحالين نبي محمد لفتي يسلوي دت الدين تها تحكسن رغفر وحال الله يوريني محمد دت الدين تها كحكسن الشيخ إنا أذوق السديد وهذا كحكن قل وحاكتر هذا تعالوا تعالى محمد نقول يرسا إلى كلمة وريكتا إذن كو يريا وريكتو ما مقاش وريكتا قصوا بحث من أحتو يدا وريكتا إذن كو يريا سواء بيننا وبينك وريكتا نصي من نهيوي جهان نقصر رئيسي قصوا بحث أنا إيقا ما صوبحن غيرتي إيقا ما صوبحن عقلي إيقا سمد يختم سواء بيننا وبينك محايتها وريكتدو ألا نعبد إلا الله الله عيدان هين هوستك منه أنه إس هوستك منه واصلنا ولا نشرك به شيئا إله إلا لو ذا جمعنا إله لماذا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا قارتين قار كنت تخريف لهم هيان إله أنه كنت تخريف لهم فيري قارتين قار كنت تخريف لهم هيان أبا بتقول شيء مهيان إلهي بأن نوذ الشيء سبحانه وتعالى فيري قل كاليا قل تعالوا إلى كلمة أراه سواء بيننا وبينكم أنصمناها أنجي إذنكم ألا نعبد إلا الله إذا الله هين هوستغ مينه ولا نشرك به شيئا إله لماذا لو ذاتشين مينه ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا إس هروسن مينه قارتين قار هروسن مهيو كل جين إله بان هوست شوغينا أساقا نوترينيا كتاب كيسان وحان اسكو قبنا إسول الله برينا عقلك إيامانك ونمي سمينا واستعمالنا وحان كسو قنانا ديا سيانو سؤال إيو تلفايدي سفران وقت يقول بنايو وحان كسو قبينيا عقلينيا مان كيننا واستعمالنا إرقا محالو الجيدة أوفرس انت نانا وضا فدنا هلكا هدي دب لغشدو oo cunug yar oo laba sano jira dabkii uu aado maxaan sameeynaa kulli waa ku ordayna laakiin maxamed daahir hadduu dabka aado iska aamusayna tole asaa ka leexan doona caqligiisa ku halaynayna quraankaani xoolo uma soo degin dad buu u soo degay liqawmin yaqiluun quraanan carabiyan liqawmin yaqiluun waa meeris af carabi buu ku qoran yahay dad jaraal loona u socdaa saas aayadu leedahay quraanan carabiyan liqawmin yaqiluun marka aayaddu markay wax noo sheegto aayaddu saasay tiri maaha aayaddu waxa ay noo sheegtay waa fahmaynaa waa ka fakaraynaa waa fiirinaynaa waa ka doodaynaa waa isla arkaynaa saas caqli isticmaalna waxay yidhaahdaan ragga taariikhda qora gaajaa dhacday abaar baa dhacday zamankii cumar caamul majaaca waxaa la yidhi dadkii waxay noqdeen wax dafaan baahi baa timid cumar wuxuu yidhi may maqlaysaan raggii maxkamadaha joogay nin gacan goyn kara lama arko nin walba kiiskii ku soo mara aniga ii keen abaar baaba jirtaba waa cumar bin khadaab radi allahu canhu arda waa qolo garatay caqligooda inay isticmaalaan soo majist qofka waxaa la rabaa kitaabka qur-aanka inuu ku tadabbaro liyadabbaruu aayaatihi waliyadakara ul albaab nabigeena sala allahu calayh wasalam ammaanadiibuu gubtay kitaabkiibuu noo keenay isagoon dhaqaale haysan waxba haysan halkaasuu halgan ka bilaabay ma buubuubi jirin shaksi annagoo kale u ahaa xaasii caruur buu ahaa waa shaqaynayey waa dadaalayey xoogsi waa laga rabay diinfidis waa laga rabay dagaal waa laga rabay weligii wax ma weerin asagaa la soo weerana haddaad maqasho nabiga wax weerara waa been nabi maxamed cidna ma weerarin salawaatu ullahi wasalaamu caleyh inta aayad qur-aan ku taalla fiiri mar walba gacanta labaad baa nabigu ahaa فإن قاتلوكم فقاتلوهم هذه لا دغالمان لا دغالما فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه تيد كحد قدبة فإن عوقبتم فعاقبوا هذا إذا عقابات إذا عقابة وهم بدأوكم أول مرة أي قاعد نقول بلابي فيري مرة النبي يقول أن مرات سنة آذنه